si qaldan baa loo isticmaalaa ereyga han siyaasadeed baan leh hankayga qofkii hungurigiisa iyo danaysigiisa qof ahaaneed buu han ka dhigay laakiin xasha ereyga han af Soomaaliga sidaa kuma anigu kaftami maayo runtan iska sheegaya anigu imika 80 baan ku dhawahay bayda way 70 bar horaan dhaf salka qabaa'ilka iyo qarannimo inaan isqabanaynin ayaa ii muuqatay oo aniguna ilaa imika rumaysnahay qabiilku wuxuu ku dhisan yahay oo uu ku wada socdaa uu ku wada jiraa isu hiilin isu eexasho tolka gariya gardaraba u hiili qarannimana waxay u baahan tahay inay dadka oo dhan u dhaxayso waxa ay isku raacisaana ay tahay waxa bini aadanba isku raaci karo cadaaladda iyo qiyamta wanaagsan isxaq dhowrka is-ixtiraamka is-dhagaysiga dooda hufan dulqaadka in la isu dulqaato danta guud mar walba la abaaro ta aan lagu kala tagay waxyaabaha aan lagu kala tagaynin ee la wadaago oo mar walba la xeeriyo ay qarannimo u baahan tahay wala iskhilaafaya haddii taa la waayo ay noqoto kanay xiga waliba wuxuu leeyahay qabiilka Soomaalida ee waliba dhaqanka xawla dhaqatada raacatada Soomaaliyeed ka soo jeeda waxa uu leeyahay markastaba ninka reer hebel ka shaki muxuu yiri haddaad tiraahdo hadda waa nin wax cadeeyay garo marka ay wax yar yimaadaan qabiilku waxa weeye waa isu muuqato markay caadiga tahay haddaad imika balanta qof walba isku noqo bal hadda waxaad u fiirsataa koox reer hebel oo isku reeraho meel fadhido adigu halkasta joogan wada joogay isku gooni ah dadka iyaga ugu wanaagsan in la inta kala dhamina way xuntahay inagu baa goba inagu waxay reer sameeyaan ma sameeyaan dalku inagu inagu dhisan yahay saasay ku hadlayaan waxay dhashaa in dadku kala wax la yiraahdo rayil caam dawladnimadu waxay ku dhisan tahay ummaddu ay bulsho ku tahay society hadaa doonayso inuu jiro waxa kamid ah inay jiraan waxyaabo guud oo dadku isku aragti ka yahay dad aan waxba isku aragti ka ahayn wax yar oo marmarka qaar kood aan sal adag ahayn oo isu hayo cidda kale aynu iska celino ay qabiilku ku midaysan yahay hadii qolo reer hebel la yiraahdo ay jirto isku midaysantahay isku si wanaagsan isugu xiran tahay waxa isku xiray waxa weeye qolada kale iska eegaya hadii qoladaas meesha ka guurto ka baxdo maxaa dhacaya hoos bay isugu soo noqonaya conflict gudahooda ayuu imanaya qabiilka kale ha ku madax noqdo aqbalaya ma jiro mar walba taasaa lagu jiriya ilaa ay muwaadiniin inta la noqdo aan qofka kar madaxda u noqonaya ay ku eegaan indha kale oo ah waa muwaadin mabaadida iyo xuquuqda iyo muxuu ahay danahaas umadnimo ayuu qofkani matalaya ay run noqoto oo laga arko suruugiisa dhaqankiisa qowlkiisa ficilkiisa soo waafaqsan run ay meesha timaado oo runta la isku raaco oo beentana dhinac la isaga riixo markaas sumayma waxbayaan ka taa ku raaginay waxaan arkay un kale waxa weeye qabiilku qiyamtii ay dawladnimo ku dhismi lahayd oo dhan inuu burburinayo haddana aan maalin walba ugu cabsanayo maxaynu doonaynaa qarannimo maxay ku dhisantaa unugeedu qabiil maaha qarannimo unugeedu qabiil maaha reer hebelnimo maaha unugeedu waa qof muwaadina waxay ku dhisantaa dalka la wadaago dalka og siduu u dhan yahay dal ahaan inaga dhaxeeya oo qofka muwaadinkii dalka degmo kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta meel kastaba uu si ku noolaan karo xuquuqdiisa ku heli karo oo ayada waxba ka dhinay laakiin ninka reer hebel maxaa gobolkeena keenay ayaa jirta qarannimada waxay doonaysaa dalku aynaynu muwaadiniin ku wada ahaano unuga ugu yar ee qarannimadu waxa weeye waa qofka muwaadinka muwaadiniin xuquuq siman leh sharcigu si wada qabto waxa soo raaca waxa weeye institutions taa ku shaqeynaya inay jiraan sharci dadka oo dhan simaya xuquuqdiisu kuma xidhna waayo waa qolama hadda imika marka doorasho socoto ninkii la dooranayo xildhibaanka waxa la leeyahay reer hebel baa waa xildhibaankii reer hebel qofka muwaadinkii hadduu codkiisa ku bixinayo inuu isaga xilkiisa qaado xilka wadanka qaado oo dalka horumarkiisa iyo cadaaladda iyo sinaanta
حقوق ضدك هرمرك bulshada alla inta aynu tabayno marka uu qofku taacudkiisa ku bixiyo markaas uu muwaadin yahay waana qof ay qof waliba ula macaamiloonaya inuu muwaadin yahay muwaadinku waxa weeye waa ka dal kale dalka yaale waa la haaga dalka sidaas aan oranaya in qof markuu muddo dalka ku noolaado la siiyo jinsiyadda dalka oo islaam muwaadin ku noqdaa uu jira anigu waa haday dalkan Ingiriiska muwaadin baan ka ahay oo doorashooyinka waan ka qayb galaa oo codkaygaan bixiyaa haddii aan kari karayana waan intaan doona waan sharci karaa muwaadinku waxa weeye waa qofka xuquuqdaas leh ee aan la oranaynin xaguu ku dhashay iyo xaguu ka yimi iyo waa qolama aan abtirsiin ku xidhnay waxa weeye waa qof mowqifkiisa ku qaadanaya isagoo xor ah waxa qura ee uu ilaalinayana ay tahay sharciga dalka uu yaaliyo dastuurka iyo qawaaniinta dalka uu taalo ereygan xorriyadu waa muhiim waxaynu moodnaa marar badan xorriyadu inay tahay sida doontayeen ma aha xorriyadu sida doontayeen waxa weeye allaha ka cabso oo samaha dooro adag ayoon cidina ku khasbayno dhagad kula dul joogin adigu samaha samee sharciga yaala samee dhow dadka kalena xuquuqdooda dhow موقف بعد قادنا يسام حدكم موقف قادنا يسام حديث النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا وحوها ولا الكالة على واحد نفط هذا اللي تعيشه هدي أنكم موقف قاتو أنا قدام تيرو أوكي حرمي مواد النميه هدي أنكم موقف قاتو حكا قلي كان ينادر كا دل كودا من بربرنية شرعي جبان بربرنية نظام كودا من بربرنية مسلمات سبان شدينية شرعي در كودا من شدينية مركا حسن أيان شدينية لكن مركان كم موقف قاتو هذه النفط هذا اللي تعيشه هاي سي مواد كستا تاسو مواد كستا تدلي هاي بمواد كستا بالليه مواد نمادي مركا وحوي ووحى إن مدينية إن قد حية أين وداقنه أين خيرنا كوكلا نقونين هم بري رعينا أين كوكلا نقونين هل كاسي مواد نمادي فريسان يسامركا موادين وحوي وقف قرب كيسة كي يقف كالسوق لا أو موادين أبا موادين كل ده ما هانجك ذلك كل ده ملهين خير كون نماله قل دي نماله جدي جنب ذلك ينقد حية قف ولا بين تاجريو مركين سيدان نقولنا أي موادين نقولين إنه هذا يملك الصومالي ده وانا كيو سقال دم بالله استعمال أريجه هن السياسة بالله هنكيجا وحوي قفك هنجورجيسي دنيسجيسي قفهانات بو هنكدجا لكن حاشا أرجع هن أفصومالي الصداقة أبدا كماها وأنا إن لقى إيرانية قفك مركل هذا هو قفك سوى قف هنوي عرورني بدي دي بانجرنيا نلقول ربينشلو نلقول هنوي يلو وحوي قف وحجرته وحوي قبته واحترى لو عايو مقعي ماموس بسرعة هلا هل كائن رجال لقى قادنا معه رجال والد اللي رنتي ويشرتها هم بان له راسو خاصة سياسيين تبريها كان أنا سياسة هنغوري باني لهذا أردي لا أرديو كراسيد اللي جو أرديو أيا يقولنا يا هنكي ومركزين أرجع هنكي ونكسناه أيوه وحام أيوه أنا قاعد إذا عيب كا أيوه وينيا أنا don't like it أنا قاعد إذا هرت وح ما أنت أيوه هاي سنو وح كستها هذا نفسي كستها هاي لو ما دين هرت إني نحجنه وعبسي إذا أنا له وحن كبقنا يا إني وحني بربرين ولا كلام إنني إنه ولا جلنا أيوه تا كيرانينه وحي كل إيمان كرتها marka isqabsad kan iyo siyaasadahan la isku hirdeeyay hebel kan isriyanaya marka ay aad u kacaan in ay jiraan dadweynuhu inuu ka feejignaado inuu yimaado conflict hubaysan iyo dhibaatayna hadaynu taa ka adkaano oo xojino oo aynu iska ilaalino inuu si xun u tatawurto meel xun u tatawurto arrintu وأيدا أصول الحتو تقاليه واحترام هذين تايس كيل علينا
بروسيسكا isbedelku iska imanaya horta marka ugu horeysa uu salaxmaya baan leeyahay maxaynu soo baahanahay waxaynu u baahanahay waxaan inuu hoggaan wanaagsan oo muwaadinimada Soomaalinimada dadnimada wanaaga cadaaladda waxa dadka simaya islaamnimada abtirsiinta dhinaca Soomaalinimada iyo islaamnimada iyo ummadnimada waxa abuuraya waxa way waaqiyam wanaagsan inay jirto hoggaan siyaasadeed oo halka intuu siguna saaxadda isa soo taago ka hawlgala hadii kaasi abuurmo marba dhalinyarada cusub iyo dadka mutacaliinta bartay waxay cidii maganaysa waxaan ka soo daashay qofkii damiirkiisu wanaagsan yahay ayaa ku soo biiri waa lagu soo biiri saameyn buu yeelan doonaa quwad siyaasadeed oo markaa waxaan hoggaanka kala wareegtay ayaa soo bixi maalin ay noqotaba halkaas buu markaa isbedelku ka imanaya riyo inoo iman maayo hawl farabadan buu uga baxay waliba waxaan dhiiri gelinayaa anigu imika 80 baan ku dhawahay bayda way 70 bar horaan dhaf anigu kaftami maayo runtan iska sheegaya iyadoo qalalan dhalinyarada ayaan rajo badan ka qabaa inay saaxadda siyaasadda ku soo dhiiradaan waliba dhalinyarada wax bartay Soomaaliya oo dhan meel walba inay soo dhiiradaan oo waxan wacyi ka koran aqli waxan ka koran oo vision ummadnimo leh hanaan wanaagsan oo lagu wada noolaan karo ka fikiraya inuu inta isku xirmaan inay aynu political force cusub oo halka wax geeya inay helno taasoo bay ku yimaadeen